يا سلام ما يعني حلقة ودعاية جيم كاس سينا ولا يبان hadhow ma laga yaabaa kelmaddaas in astaghfirullah tiraahdo hadday leedahay oo ah wiilka iyagu waa awood badan yahay waa habar gidiro waa awiyo siine 700 dhaafi mayo kaa leedahay astaghfirullah ma laga yaabaa hadhow inaad tiraahdo horta kabtan ayuu mid jirta waxay tahay de sababaha maalmahan live inta badan ay usoo geli waayo waa taa sababtoo live markii saan aan usoo galo in video inta laga duubto mataqaanaa maamooyinka isha dahabka gada iyo kulli iyo reerahii iyo odayaashii kulli loo shiro ayay noqonaysaa maalinta hadlaba amoor hadlalee waxaa u malaysaa in mataqaanaa afkaas keega ah oo millions lacag ah ay ku jirto ama ay ka dhex aqrinayaan ama ay ka dhex arkayaan fiidiyoda inta meelaha inta la wareejiyo waxaa arkaysaa meeshii geemkoo lasoo tuurinayo la wada joogo hadda hadalkaas aniga aan ku hadla waxaa laga yaabaa in boqolaal mataqaanaa ii sheeg dahableyda oo saaxiibkii ahmed fucadda uu sheegay in loo shido oo warsigeligeeda oo maraykanka jooga uu diyaarinayo oo tiimka ahaa marka de kabtan ayuba haddii aan hadlana waxaa weeye saasaa isku soo oranaysaan hadda marka geemkaas intaasaan ka dhahay hadalkaas ay gaar hadal kalena uguma laabanayo geemkaas aad ma sii faanan kardhe faanankii horaa khasaaray faan damba ma sii geli karo waa maasanta waa ka baxay anna waayahay amora waxaa weydiinayaa iskoorka shaashada kontonka milyan ninka royal ma soo dhaweysid gudoomiyaha waa siinaya royal waa siinaya iyo elmaba waa u celinaya mega laakiin su'aalaha ayuu ka dhimay iskoorka kontonka milyanka ma laga yaabaa inaad sii dheeraystaan 70 milyan 80 milyan iyo 100 milyan gaarsiisaan geemka soo socda bara iyo amora iyo dhamaantii waa islaamiyaan iyo telefoon aan ku hadlay waa kasii deganayaan waaya waa ku salaaminaa laftigay wiinaa soo gabagabeeya ay ragoodan waa salaamaya waayahay amore iskoorkaasi waaya waa ku salaaminaa kabtan iskoorkaasi amore ma laga yaabaa inaad sii dheeraysataan shaashada iskoorka kale dhalinyarta ee Virginia waxa weeye markii dhalinyartaan Hawi Empire ee 50 milyan ay ku soo wareegaan ayagana marka 100k oo mataqaanaa ayagana ay ku wareegi doonaan marka waa qorshahaas soo socda insha Allah waayahay waa maasanta amorow royal baa siinaya royal soo dhawow game baa laftiga waayahan ku dhagsanaa gamekaaga xagee ku dambeeyay royal soo dhawow marka hore agaasina aadan ku salaamayaa waxaan sidoo kale salaamayaa madaxweynaha beesha Hawiye Mr. Amor aadan ku salaamayaa elmanna waa salaamayaa madaxweynaha daarood ni horta gamekaygu waxa weeye waa gameki wuxuu ahaa kaliya mataqaanaa loo diyaariyey lacag gaaraysa 21 milyan in recordka mataqaanaa daarood oo dhan lagu wada jabiyo beesha mareexaan ayaa fakatay oo diiday inay imaado oo waliba xataa waqtigan siiyey 30 July bay ahayd inaanu ciyaarno waxay dhaheen ma ciyaari karno markay heleen xan ah recordka iyo lacagta mataqaanaa aan diyaarinay waxaan dhahnay ku qaata oo ku qaadanay 17 September bay dhajiyeen lacagtii sii kordhinay oo ilaa 25 milyan baan gaarsiinay nimankii horta waa imaa waayeen oo mataqaanaa ma aqaan recordada daarood bay ilaalinayaan baan isiri nimankii waa mataqaanaa waa suuragali weyd inay imaadaan marka xaasha ilaahay gamekaasu waxa weeye waa baaqday beeshaasuna mataqaanaa waa awoodi waayeen inay xataa inta caadi usoo fariistaan ay hadallo caadiya ku hadlaan ay dhahaan nimayow ma ciyaari karno tabar naguma jirto marka beeshaasu tabardaraan uga tagnay gamekaasuna waa baaqday haddana mataqaanaa awoodda iyo systemka waxaan ku celinay maadaama hadda hoggaan cusub la sameeyey hoggaanka cusub baan ku celinay beeshaasuna si forfeedan kaga adkaanay waayahay amorow ma laga yaabaa maalmaha soo socda inaad maadaama meelaha kale ee daaroodka inaad beel ka mid ah ballansataan ma laga yaabaa beeshaas mareexaa ka wareegataan ma amora tiri mis aniga adiga royal okay ni horta aad u mahadsan tahay waa laga yaabaa waa dhici kartaa sababtoo ah waxaan waxay u baahan yihiin waqti in la geliyo waqti bay rabaan marka hadda maadaama systemkii hore oo mataqaanaa system ka duwan meeshu yimid oo mataqaanaa hadda beeshii Hawiye dhammaantood la mideeyey
waagii hore ma ogtahay dadka iskaga qaldanaayeen daarood iyo waxa tartamaya hawiye maaheen waxa tartamaya waxay aayeen daarood iyo madulood marka aan fiirinay beesha madulood oo dadaal badan ku bixisay inay mataqaanaa xifaaltan adag daarood la galaan baan annaguna mataqaanaa jufo hoose ku tartamaynay hadda beesha hawiye waan mideynay isku dhaf badan wax badan baanu sameynay marka waxaa laga yaabaa in aan qorshooyinkaas iyo ku fikirno gudiyada iyo madaxda iyo dadka aan dooranaan mataqaanaa aan kaga dambeyn doonaa wixii soo kordho laakiin hadda sida saxda officialka ah si dadku wada og yihiin beesha mareexaan waa kaga adkaanay si oo mataqaanaa awood iyo kalsooni iyo xaniyo ay ku dheehantaa marka wixii ka dambeeya waxaan ka sugaynaa madaxdayada iyo madaxda sugaysa waayahay su'aal hadaa ay ta'amuro aan weydiiyay baa adna ku weydiinaya royalow wiilasha daarood ee geemka dheeli jiray waxay sheegeen in TikTok xiisii iyo xamaasadii yaraaday ay sabab u tahay beeshii hawiye ragii geemka dheeli jiray gabdhihii ama raggii inay diideen ama la waayay ama aysan ku dhicin wiil daarooda caawa geemka rindigeema inta la qabsadaa inay la dheelaan arrintaasi shakhsiyan amoora wuu diiday oo daaroodkii baa la la'yahay buu yidhi adiga arrintaasi ma see dareemaysaa maxaad isleedahay ma adiga shakhsiyan arrintaasi ma beenba ma runba maxaa ka jira in wiilashii hawiye ee geemka dheeli jiray la waayey ay carareen halkaasna xamaasadii ay ka yaraatay iyo xifaaltankii daarood iyo hawiye dhexdooda u dhexeeyey geemkii yaryaraa ee kaalay koombo aan wada dheel leh ni horta aad u mahadsan tahay horta xamaasadu waxa ay ka yaraatay dhanka beesha daarood sababtoo ah beesha daarood inta badan waxa ay soo dhaafi waayeen awoodda iyo mataqaanaa cududa beesha mudulood gaar ahaan beesha abgaal oo ay muddo 2 sano ay soo fadhiyeen hawiye intiisa kale waxaanu lahayn beesha daarood nimankaas waa ku aadaan horfadhigooda aan ku fiirino markii aan tijaabinay awoodda iyo tabarta xagiina jirta oo mataqaanaa mudulood aad shaashad garaacis iyo mataqaanaa iyo fiirsasho iyo rikoorada ay dhigeen aad mataqaanaa wax ka qaban weydeen kadib baan waxaan hadda sameynay maamul oo aan ugu talagalnay inaan mataqaanaa aan ku soo gabagabeeno tartankii 2 sano socday hawiye empire baa la yidhaha maamulkaas marka haddaan waxaanu dhihi karnaa haddii daarood wax isku hayo hawiye iyo daarood tartan toos ah hadduu noo bilaabanayaa laakiin awal tartankii socday annagu xagga iyaga wuxuu kaga diiwaan gashan yahay mudulood iyo daarood waayahay hawiye empire bay la soo baxeen haddana tartan diyaar u nahay ibay dheheen waayahay waa la arki doonaa insha allahu tacaala bal geemka soo socda iyo waxa geem ma jira hawiye empire hadda geemka soo socda ee bilaha soo socda la rajeynaya ee dhigsan ay groupka hawiye empire wataan ama qayb ka yihiin